kulan lagu shaacinayay miisaaniyadda sanadka cusub ee 2016 ee tirsiga dalka ee degmada Ceeloogaadeen oo dhan 101,811,460 bir oo ka qabsoontay madasha kulamada degmada Ceeloogaadeen ee gobolka Qoraxay ayaa waxa ka soo qayb galay dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada Ceeloogaadeen iyagoo si weyn u soo dhaweeyay miisaaniyadda cusub ee sanadkan si markaasi ay ugu la xisaabtamaan halka ay ku baxdo qondada ay dawladda ugu tala gashay shacabka ku dhaqan degmadani madaxa xafiiska khataraha masiibooyinka degmada Ceeloogaadeen ahna kusimaha gudoomiyaha degmada Ceeloogaadeen mudane Xasan Food Farax iyo sidoo kale madaxa xafiiska maaliyadda degmada Ceeloogaadeen mudane Cabdilaahi Axmed oo ka warbixiyay shaacinta miisaaniyadda sanadkan cusub ayaa sheegay inay lagama maarmaan tahay in la wadaago bulshada cadadka miisaaniyadda cusub ee sanadkan ay dawladdu ugu tala gashay si guud shirkan wuxuu ka kooban yahay dhammaan qabalayada degmada Ceeloogaadeen qaybaheed kala duwan bulsho ka timid ayaa halkan isugu timid ujeedka ay isugu imaadeen waxa weeyaan waxa maanta jira shaacinta miisaaniyadda degmada sanad miisaaniyadka 2016 miisaaniyaddu kulli maxsuudka maaliyadda faahfaahin doona mushaar hawlfulin iyo mashaariic bay isugu jirtaa mushaarka sanadka 2016 38,558,642 bir weeyaan hawlfulintu waa 10,882,271 kabitaalkuna waxa weeyaan 52,370,547 miisaaniyaddan si guud waxa loogu talagalay in lagu horumariyo mushaarka oo kale waad garanaysaan iyo hawlfulintiyo laakiin kabitaalka oo kale iyo isku ujeeday noqonayaan in lagu horumariyo bulshada weeyaan ujeedadu bulshada inay waxa fiican inay fahanto waxa shirkan loo qabtay inuu yahay waa horumarinta waxa lagu horumarinayaa kaabayaasha dhaqaalaha ee bulshada laga horumariyo kaabayaasha horumarinta waa la garanayaa tusaale ahaan waxa kamid ah baahiyaha in wax laga qabto biyaha baahiyaha caafimaadka baahiyaha beeraha baahiyaha xoolaha iyo dhammaan iyo guud ahaan baahiyaha ay bulshada degmada Ceeloogaadeen ay leedahay ayaa miisaaniyadda loogu talagalay bulshadana waxa laga doonayaa inay la shaqeyso degmadeeda iyo dawladda mashaariicda iyo horumarinta iyo waxyaabaha loo dhisayna ay ilaashadaan oo ay u arkaan hantidooda inay tahay shirkani waa shir shaacinta miisaaniyadda kaasoo ah in lagu muujiyo miisaaniyadda si ay isla xisaabtanka iyo cadcadaanku u noqdaan mid waadax sida la hadligeed waxa si guud halkan loogu soo bandhigayaa miisaaniyadda degmada Ceeloogaadeen miisaaniyaddaas oo isugu jirta miisaaniyadda guud ee sanadkan 2016 101,811,460 weeyaan miisaaniyadda guud miisaaniyaddaas waxaa dakhli ah oo la rabaa dakhliga in laga soo saaro 17,371,935 waa miisaaniyad dakhli oo la rabo dakhliga in laga soo saaro weeyaan miisaaniyaddaas dakhligeena ka mid tahay si la leeyahay bulshadu inay ogaato dakhligaas inuu degmada saaran yahay oo dakhligaas sidii lagu soo saari lahaa laga baarandego weeyaan miisaaniyaddu waxay ka kooban tahay 3 nooc mushaharku waa 38,658,642 hawlfulintu waa 10,882,271 mashaariicduna waa 52,370,547 miisaaniyaddan waxay ka kooban tahay marka dhammaan kaabayaasha weeyaan dhammaan kaabayaashii iyo shaqooyinkii guud lagu qabanayo weeyaan kaabayaashaas oo lagu horumarinayo dhinacyada waxbarashada beeraha xoolaha caafimaadka iyo biyaha ayaa laga shaqeynayaa mushaharkuna waa shaqaalihii mushaharkoodii hawlfulintuna waa shaqooyinka wixii lagu qabanayo weeyaan haday tahay shidaal iyo haday tahay stationery iyo haday tahay habeen dhaxba marka miisaaniyaddan waxaad ka kooban tihiin qabalayadii degmada waxa loo baahan yahay qof walba message-kan inuu sii gudbiyo oo uu sii gaarsiiyo fariintan bulshadii kale uu kaga yimid meesha isla markaana qof kasta inuu ogaado baa loo baahan yahay oo bulshadu la xisaabtanto oo miisaaniyaddaas sanadkan 2016 ay ogaato weeyaan
dhinaca kale qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan degmadan ceel ogaadeen ayaa iyana si weyn u soo dhaweeyay shaacinta miisaaniyadda sanadkan cusub. shirkan ujeedadiisu hal ajende ayuu ahaa, ajendahaas oo ah miisaaniyadda in la ogaado waxa ay tahay tiradeeda. waa laynoo sheegay maaliyadda iyadoo faahfaahsan, waan soo dhaweynaynaa. waxaa wax bogaadin mudan ah hantida aan idiin hayno een idinku adeegayna waa intaasi ogaada. waa waxaan hadda ka hor jirin oo jiro oo sanadahan dambe soo kordhay wey, oo nagula xisaabtama oo waxaasaan idiin haynaayo haddii aan hagaajino oo sidii loogu talagalay aan idinku hagaajinana arka, haddii kalena nagula xisaabtama oo waxaan horey u jirin aad iyo aad bay aan ugu bogaadinayaa. shaacinta 2016 miisaaniyadda degmada Ceel Ogaadeen sida naloogu bandhigay iyo sida naloogu shaaciyay ee naloogu kala sheegay aad baan u bogaadinayaa, u soo dhaweynayaa. waa wax lagu farxo, wax jiri ma aha sida naloogu kala dhigay iyo sida naloogu soo bandhigay. waan soo dhaweynayaa. Bashiir Cabbaas Cali, warbaahinta deegaanka Soomaalida SR TV, degmada Ceel Ogaadeen.